ووحو كل انت هدي ما يشاس مدينة يكون هالكاس على الجدوي مركي أيضا ما يسترنتي sagaalkii bilood oo caadiyan hooyooyinku ay ilmaha uurka qaadaan oo hooyadiis ma taqaan aamino ma taqaan nabiga hooyadiis uurkeedu dhameystirmay ayay dhashay nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi tashriifka ilaahay siiyay iyo tacdiimkiisa markuu dhashay gacnaha ayuu dhulka dhigtay madaxana ayuu kor u qaaday asagoo sharafta maanta uu leeyahay halkaas ka ishaarahaya hooyadiis waxay u yeertay Abdul Muttalib oo markaas aan khabarka ogeyn waa uu farxay waa uu qaaday kacbada ayuu la galay asagoo ma taqaana ku soo wareejiyay kacbada musharrafada ah ilaa nabigu wuxuu ku dhashay salawaatu rabbi wa salaam alayhi maka ayuu ku dhashay marka kacbadii ayuu u qaaday nabiga waxa la dhalay salawaatu rabbi wa salaam alayhi asagoo nadiif ah asagoo gudan asagoo xuduntu go'an tahay asagoo aad u wanaagsan asagoo subkan hatta asagoo loo dhakuulay ayuu dhashay baadul muhaddisiin waxay soo gudbiyaan in nabigu awoogiis uu guday inuu markaas gudnaa la sheegay nabigana salawaatu rabbi wa salaam alayhi umulisooyinka wax ka umuliyay hatta waxa ku jira hadii alla ku roon yahay kuwa jannada laga keenay nabigu markuu dhashay salawaatu rabbi wa salaam alayhi nuur aan awlaada kale talahayn ayuu hooyis kala soo baxay oo macigiisa la soo baxay nuur baa soo baxay meelo badan laga dareemay oo dadka xada guriga ma ahane aagii oo dhan laga dareemay ayaa nuur kala soo baxay ishaaro nuurkan loo ishaarahayo sida ogtiima laga soo bilaabo abuna aadam nuurka nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi min awlaad oo yaashis ayuu ku soo socday asaga laga bilaabo ilaa intaan soo tirinayna nin kasta zamankiisi waxa dadka ugu akhlaaqda wanaagsan oo hadii alla ku roon yahay ugu sharafta badan oo ugu dhowrsan ilaahayna waa uu ilaaliyay nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi asaga nabi maxamed laga soo gaaro hooyadiisa abiis abdullahi aamino ilaa nabi aadam ilaahay waa soo ilaaliyay waxa juhalada iyo fuxshiga iyo ay soo maraan ilaahay waa uu ka ilaaliyay marka nabiga nuur ayaa la soo baxay hooyis caloosha kala soo baxay meesha leema daa'in dabaqyadii ku yil ayaa jajabay dib gaaladu caabidi jirtay oo 1000 sano la shidahayo gaaladu caabidahayeen oo reer Faris u shidnaa jirana habeenkaas ayuu damay meel ilaa saawa bad ka soco jirtana oo ayana way istaagtay oo qumay hamadaan u dhaxaysay aan iraahday ma taqaana saawa meesha la yiraahdo meel aan biyo laha jirina hadii alla ka bad ayaa ka dilaacday waa nabi fadliga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ilaahay ba marka wuxuu ku sharifay wax aan la soo koobi karin habeenkii uu dhashaba todobada samo ayaa jinni laga xarimay hadii alla ku roonay aw afarta hore uga xarimeed marna warshad gidi baalkii jinnigi xanka soo rigisay jir malaa'igta ayaa laga wada xarimay nabiga waxa nuujiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hooyadiis waa ay nuujisay ayaamo ثويبة الأسلميين وين نجسي وعانسن ذاتك النبي نجيه صلوات ربي وسلام عليه حليمة السعدية وأبو كبشة وأها ديال الزوج هذه مركز حلقي النبي ورشة صلوات ربي وسلام عليه دقنك إيو دبعضها قريش وحي أهين أما عربه دنبا ذاتك مقالة الجوجة نبي مقاله كل شيء وحا المه إنه جنجرهم أي أجرسي جرين ذاتك باديها الجوجة مركز ذاتك عاس أنتي مادان الدسيد اللوجي هذا annaka ilmaha markii magaalo ku dhashaan baadiyaha waa jirkooda ku soo kama aqliga luqadda wax walba ku soo bartaan magaaladii waxa tii luqad lahjaayo googo ah baadiyahaas markii ilmuhu ku soo kaba hadda haddana markaan joogno qofka magaalada iska dhashay oo iska jooga iyo midka baadiya inta ku soo barbaar markuu waxbarasho gaar magaalada kan waxbarashada la qabsaday kana fiican oo firfircoon midka baadiyaha qalan joogan hadda ma nacfi badna oo waa qalan yahaba midka magaalada joogana xogaa yar waxba ka moodaa in waa la yiraahdo marka saas la sameey jiray markii nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi xaliimatu saadiya waxa la soo guuriyaa inay gabdho badan iyo soo raacday oo raadinahay ilmo ay nuujiyaan oo ayagu irmaano caanalo ilmo wata marka ayadu waxay tiri waa laga soo hormaray markii laga soo hormarana gabdhihii dadkii wanaagsanaa oo lacagta lahaa ilmahoodii waa laga hormaray cunugaano iska agoona ayaa waxay tiin ta arko dhowr jeer ka tagtaan ku soo laabatay ku tiraduday bay markii iska qaato ilaahay baa haleeshiyay waa qof khayr la doonay ilaahayna hadii uu barakay wixii nicmo aha oo ay la kulantay ayay kala kulantay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi 3 bilood markuu jiray hadii alla ku reen waa u istaagay 5 biloodna waa ku socday caadiyan ilmuhu kuma socdaan laakiin hadda qofkii ilaahay doortay ayagoo caloosha ku jiray iyo ayagoo banaanka ilmo yara ay waa ku hadlahay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi intuu joogo guriga xaliimada saadiya ayaa xabadkiisa la jeexay marka waxaana laga saaray laba malag ma inta ilaahay u soo diray oo calooshiisa la jeexay ilaa dhowr mar baa la jeexay laakiin markaas ugu horeysay baa meesha qalbiga shaydaanku qofka ku waswaasiyo markii xanka iyo dambiga iyo wax kugu tuurahayo meel waxa jirta uu ka halilo cadkaas ayaa nabiga maxamed laga saaray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabiga hooyadii salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asagoo 4 sano jira ayuu wafaaday aabihiisna asagoo 2 bilood uurkiisa leeyahay ayuu wafaaday
إلهي برباري أخلاقي سنة وناجي واتون نبي أفي سكورنا صلوات ربي وسلام عليه أذبني ربي فأحسن تأديبين markii hooyadiis wafaaday waliba meel abuul leeyahay ku dhimatay ayadoo ka bax ayadoo inta tagta soo laabatay markuu dhintana markaana Ayman ayaa soo qaaday awowgiisana u keentay awowgiisana ka faala qaada nabiga sallallahu rabbi wa salaam alayhi awowna wuxuu ka dhintay asagoo 8 sano jira awowga ka faala qaadana adeerkiis Abi Talib ayaa hadii la ku roon yahay ka faala qaaday aad buu u dhaqaaleyn jiray waa uu jeclaa nabiga sallallahu rabbi wa salaam alayhi mar walba oo wadan ahayn wada jiray oo nabiga markasta ka meeshii ilmihiisa kale uu uga ixtiraam badnaa maadaama adeerkiisu aadna waa u jeclaa waxa dhacday jacaylka intuu ka qabay asagoo diinta nabiga raacsanay sallallahu rabbi wa salaam alayhi markii nabigu weynaaday oo la soo saaray ayaa qoladii Quraysheed waxay yiraahdeen Muhammad hana la ka qabto markaas waxay uga baqeen Abi Talib adeerkiis markaas waxa Abi Talib wiilkaagan diinteeni iyo dhaqankeeni waxaan haysana bedelahaya aan naga qabo ama noo fasax aan ka qabanay wuxuu yiri galabtii markii geelu soo hayaado ayaa inii jawaabahaya rag hadda waa weyn oo u yimid oo madaxo ayu markaas sanaadiidu Quraysh ku wado aan laga daba halin buu wuxuu ku yiri markii galabtii geelu soo hayaado inii jawaabahaya war hadda nin dhamo qiimo lahan ka dhignay maxay ta geelan ugu xireysaa wuxuu yiri hali wuxuu yiri niriga aan hadii u olasho maxaad weynay fasaxaya buu yiri macna maxaad wiilkeegi hadii hal markii niriga u olasho waa inay fasaxayo laakiin waa wiilkeegi inay fasax ma macno nabigana sallallahu rabbi wa salaam alayhi hadde waa iska soo googeynahay sababtu waxay tahay culimo badan oo iga dambaysaa nabiga waxa diinta islaamka ka soo sheegay ilaahay ka soo sheekaynahay markii laga soo bilaabo nabi aadam ilaa wafaadkiisi asaga umrigiisana 63 sano gaaray marka waa dareemi kartiin nus saac wax inta sano soo saxda umrigiisa hadii laga soo qaaday 63 sano wax dhacahay oo taariikho in laga dadka la baro u baahan wax 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo lagu koobi karo marka muqtadafaad yar oo aan raba in ma taqaan ilmaha maskaxda ku barbarto ayaan ka soo qaadanaya nabigana sallallahu rabbi wa salaam alayhi asagoo 25 sano jira waxa la dhihi jiray Khadija bint Khuwaylid bin Asad bin Abd al-Uzay bin Qusay baa la dhihi jiray nabigan صلاة وتسليم وزكاة تحياتي على خير خلق الله والآل أجمعين رسول الله صلي وسلم بحسن بدأ بواجهك المترم صلاة وتسليم وزكاة تحياتي على خير خلق الله doorashada ilaahay doortay iyo waxyiga uu waxyooday horteed ilaahay mar walba agtiisa uga doornaaye wuxuu nabigu sallallahu rabbi wa salaamu alayhi ahsana qawmihi khalqan wa khuluqan midka uu wanaag badan cid uu ka dhashay xagga dabeecadda iyo xagga dhaqankaba wuxuu ahaa nabigu midka xagga sheekada ugu runta badan wuxuu ahaa nabigu midka xagga amaanada ugu weyn wuxuu ahaa nabigu sallallahu rabbi wa salaamu alayhi midka fuxshiga iyo xumaanta ugu fog iyo akhlaaqda ragga wasaqaysa ilaa dadkiisu ilaa ma taqaanada la kuurinayo oo ahaado qoomkiisa midka ugu marwo badan oo u karaamo badan